war-saxaafadeed maanta ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dib u celiyay dhalashadii labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka. war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa u qornaa sida tan maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha August 2019 waxaa si rasmi ah idin la wadaagaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu celiyay jinsiyadii labaad ee uu ka qaatay dalka Mareykanka. hawshani waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku hawlanayeen sharciyaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadda ee Soomaaliya iyo Mareykanka. madaxweynaha Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isagoo oo ka soo kororsaday aqoon iyo khibrad shaqo oo kala duwan wuxuuna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaaraha sanadkii 2010. dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadinka Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale balse markii la doortay madaxweynuhu waxa uu si iskiisa u bilaabay qorshe celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka taasoo maanta soo idlaatay. dawladda Mareykanka ayaa horay u soo saartay digniin ku socota dadka xilalka haya ee haysta dhalashada Mareykanka taasoo ku wajahan madaxda xilalka haysa ee uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto in ay dib ugu soo celiso dhalashooyinka Mareykanka shakhsiyaadka xildoonka ah ee meel aan ahayn dalka Mareykanka isla markaana la xoojin doono midnimada wadajirka muwaadiniinta Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa horaantii bishii Maarso ee sanadkan soo saartay amar ku aadan muwaadiniinta Mareykanka ee xilalka saamaynta siyaasadeed leh ka haya dalal kale. wasaaradda ayaa sheegtay xilligaasi in shuruudda dalkaasi looga cadeynayo in ay dhici karto in qofkaasi uu lumiyo dhalashada Mareykanka haddii uu u tartamo xil loona dhaariyo taasoo dawladda Mareykanku ay sheegtay in aysan waafaqsanayn shuruucda dalkaasi. kiiska la xiriira muwaadiniinta Mareykanka ee haatan madaxweynaha ka ah dalal kale ama wasiirro arrimaha dibadda waxa ka dhalanaysa su'aalo adag oo la xiriira sharciyada caalamiga ah. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrimahaasi si gooni ah u eegi doonta ayaa lagu yiri warka xilligaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. tilaabadan jinsiyadda loogala noqonayo dadka xilalka u tartama ayaa waxa dabada ka riixaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sidoo kale waxa xusid mudan in sharciga Mareykanka uusan ogolaanayn in qof haysta baasaboorkooda uu dalkaasi ka isagoo ku adeeganaya baasaboor dal kale. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2 jeer ka baaqday shirka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxaana sababta looga sheegay in sharciga Mareykanka uusan ogolaanayn in madaxweynaha haysta dhalashada Mareykanka uu tago dalkaasi. ugu dambeyntii war-saxaafadeedka maanta ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa lagu shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dib u celiyay dhalashadiisii labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka. arintani ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku nool. fadlan subscribe saar kambalada